Assalaamu calaykum. Waa qaybtii labaad ee gorfaynta dhiganaha dabeecadaha ragga iyo dumarka ee uu qoray Dr. John Gray. Cutubka 8aad daboolka qaadista kala duwanaanshaha baahiyeed. Qoraagu waxa uu cutubkan kaga hadlay marka la joogo dhanka baahiyaha in ay ragga iyo dumarku si abuur ah ugu kala duwan yihiin, waxaana uu sheegay in mid kastaaba 6 shay oo isaga u gaar ah u baahan yahay. Haddii aynu ku horeyno 6 shay ama 6 baahiyood ee ay dumarku leeyihiin, waxa weeye 1 in la daryeelo, 2 in la fahmo iyada iyo waxa ay had iyo goor rabtaba. Marka ay ninka canaananaysana, waxa ay rabtaa in la fahmo ee xumaan kama aha badana. 3 in uu ninku daacad u ahaado. 4 in uu rumaysto dareen kasta oo ay u muujiso. 5 in uu ninku dejiyo marka ay diiqadaysan tahay ama ay cabanayso, halka uu ninku uga baahan yahay 6 kale oo kala ah: 1 kalsooni, 2 in ay gabadhu aqbasho wixii ay kala kulanto ninka, 3 qadarin, 4 la dhacsanaan, 5 u qiridda waxa uu samaynayo, 6 ku dhiirigelinta waxyaabaha idin anfacaya. Cutubka 9aad maaraynta muranka. Marna ha isku dayin in aad la muranto lamaanahaaga kale, halkii aad kala murmi lahaydna la dood, oo waxaan aad isku haysaan isku day in aad caddayma ku qurxiso. Inta aad ka yarayso sida ay adiga kula tahay, ku dadaal sida ay ku fiican tahay. Marka ay aragtidaada timaadana, ha noqon qumanihiisu qoorta ugu jire isagu isla saxan, ee aragtidaada ballaadhi si ay u soo gudageli karto aragtida qofka kale. Cutubka 10aad samaysadka dhibcaha. Qoraagu cutubkan waxa uu kaga hadlay in marka la joogo qirashada wanaagga ay lamaanuhu isu qabtaan ay ku kala duwan yihiin, in ay raggu hal mar haddii wax muuqdo loo qabto in badan xasuusnaadaan, haweenkuna ama ha yaraado ama ha weynaadee ay waxaas markaas uun ku farxdo. Tusaale, haddii aad haweenaysiiso dahab, guri, gaadhi, iyada waxa uu u yahay wax aad hal mar siisay oo berrina waxa ay jeclaysan lahayd in aad hadiyad kale siiso, halka uu ninku taas haddii loo qabto weligii xasuusnaanayo. Marka qoraagu waxa uu leeyahay, dumarka ragow inta aad u tixgelisaan dabeecadahoodan, hadiyadda u badi, adiga oo aan waxba hadiyad weyn haddii ay dhib kugu tahay siinayn. Xabad ubaxa oo aad hadiyad uga dhigto ayaa iyada wax weyn iyo dhowr dhibcood oo ay kuu hayso u ah. Waxaana ka mid ah waxyaabaha haddii uu ninku u qabto gabadha ay wax weyn u arkayso waxyaabahan soo socda: 1 in marka uu guriga soo galo salaanteeda iyo ka wardoonideeda ku bilaabo, isaga oo wixii uu sitay aan dhigin, kabihiina aan weli bixin. 2 inaad aad u dhagaysato marka ay hadlayso. 3 in aad kaalmayso marka ay daalan tahay, diinteenna islaamkuna waxa ay sheegaysaa mar kasta. 4 mar kasta oo ay kaa xumaato in aad cudur daarto. 5 marka ay kula hadlayso wax kasta oo aad hayso inta aad dhigto dhagayso. 6 marka aad ka maqan tahay maalintiiba dhowr jeer soo wac oo weydii halka ay wax u marayaan iyo waxa jira. 7 ugu yaraan maalintii 2 jeer ku dheh waa ku jeclahay. Sheekooyinkeeda u muuji in aad la dhacsan tahay oo ay kugu socdaan. Waa qodobka 8aad. Cutubka 11aad gudbinta dareenka adag. Qoraagu cutubkan waxa uu kaga hadlay in haddii mid lamaanaha ka mid ahi uu ka xanaaqo ka kale, aanu ku buuqin ee uu waraaq u qoro. Waraaqdaas oo uu ku sheegayo waxa uu ka xanaaqay, in uu ka xumaaday, iyo ugu dambayn xanaaq mooye xaqiiqadu in ay tahay in uu qofkan uu ka xanaaqi jecel yahay. Taxanahan gorfeeye oo aynu ku gorfaynaynay buuggii labaad ee dabeecadaha ragga iyo haweenka ee uu qoray Dr. John Gray, waxaa inooga hadhay hal gorfayn haddii uu Allah awoodda leh ogolaado. Intaan ku kulmano muuqaal kale oo xiiso badan. Assalaamu calaykum.